الرحمن الرحيم جمهورية فدرالك الصومالية مقعد دادوينها الصوماليات محكمة قبل كبنادير قيبت عقاب تلانت تشيغا ما أنت أي تاريخ دو تاليح دا بيش سدحاد لما كون أفري لباتنكا محكمة قبل كبنادير لانت هذا تشيغا وحي كون رواقع إساسي وفقصن قدو كبغلين لباتن فخردي سدحاد إحيار كابك عقاب الصوماليات حكم كيس دعودات عقابتها لمبركيسو يهي بقول أفرت تضبط لبكون أفري لباتن كاسو إذا سنكيا هاي سيد علي معلم داود إن بيلسن حرس عثمان أفري لباتن جرا كردش حمر دجندر كينلي كنا حيران حرونت دم بارس CID كنا إذا سنقضبضا أفر بقول صدنيا أفر لا آخر يقضب كصدق سجال فخردي سكوبات حرف كيسدا حرك عقاب الصوماليات يقضب كأفر بقولي أفرتن فخردي سكوبات ولا لا أخي قضب كصدق سجالات فخردي سكوبات حرف كيسدا حرك عقاب الصوماليات لنا حري شنتي بيش لبكون أفر لباتنكا محكمة قبل كبنادر مركي أركتي إن هذه سنة سيد علي معلم داود ومحكمة كهر عديي إن أسيقا إيو مرحومة أي استقالين كهر إنت ونفل كدعين إسلها بينكاس مركي أركتي إن هذه سنو شاقي إن حاسكيسو كل هذي نين أضي أيان قرسنا أو علمها إلى كوريا أرنتاسنا وكحناقي مركي أركتي إن هذه سنو شاقي إن أسيقا أو عريسان وكل هاي ألابتيد أيان قمنا إنتي ننكالي كوغلا جيفلها مركي أركتي إن هذه سنوه وشدال دونتي مركي إنتاس أي إسلاف سدين كدب تاس أو عدينيسا إن هذه سنوه قرشيي سمينتا فالدنبيتك markay aragtay in eedeysanuhu uu gubay qol aan ahaynin qolkii alaabtiisa jiifka iyo fadhigu yaaleen uuna gubay qol aan wax alaab ah aalin hadii laga reebo hal sariir iyo hal joodari iyo armaajeer taasoo cadeynaysa haduu rabay inuu gubo alaabtiisa inuu ka bilaabi lahaa debka qolka jiifka iyo ka fadhiga ee uuna ka bilaabi lahaynin qol aan alaab aalin markay aragtay in qolka la gubay ay ku gubteen taleefanadii marxuumada taasoo cadeynaysa in marxuumadu qolkaas joogtay marka uu gubayay oo ayna gelin markii uu debku qabsaday sida uu ku dooday eedeysanuhu markay aragtay in taleefanada marxuumadu ay ku gubteen qolka uu gubay eedeysanuhu taas oo muujinaysa in marxuumadu ay qolka dhex joogtay inta badana taleefanadu ayna qofka ka harin saacadaasna ahayd xilli dambe markay aragtay in sawirka marxuumadu oo ka muuqdo debka gubay jirkeeda oo dhan ayna suurtagal ahaynin in debka ka kacay hal sariir iyo hal joodari oo u gubi karo marxuumada jirkeeda sida ka muuqata markay aragtay in eedeysanu sheegay in waxaas oo dhan uu sameeyay hadalkii marxuumada ay ku dhaxdo oo ahaa in ay nin kale guriga keensanayso oo ay ku guursanayso taasnu ay keentay in uu xanaaqu ka tambadiyo sida uu sheegay xukunka maxkamadda gobolka banaadir iyadoo cuskanaysa asbaabta sar ku xusan si waafaqsan qodobka 84 faqradiisa koobaad xarafkiisa A ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 107 faqradiisa saddexaad ee dastuurka ku meel gaarka waxay eedeysanay Said Cali Macalin Daawud kuwaysa faldinbiyeedka ku xusan qodobka 440 faqradiisa koobaad oo la akhriyo qodobka 39 faqradiisa koobaad xarafkiisa D ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxay eedeysanay Said Cali Macalin Daawud ku heshay faldinbiyeedka ku xusan qodobka 434 la akhriyo qodobka 39 faqradiisa koobaad xarafkiisa D ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxay dinbiile Said Cali Macalin Daawud ku xukuntay ciqaabta ku xusan qodobka 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo ah dil toogasho ahna qisaastii marxuumad luul Cabdicasiis Maxamed xukunkan cidii aan ku qancin waxa uu furan racfaan ku siman inta uu sharcigu tilmaamay xukunka waxa la gaaray maanta oo taariikhdu tahay 6 bisha 3 2024 wabillahi tawfiiq